koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo humaaga tarinaya hawsha malaweeheedhaylalamay hadaagidayolodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanan noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay low waranagu horanu goonee aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay aryaada waxaa la yidhi afisyoona maantii la tegay jaga haddaan waayey xilka kii ku guulaystay oo ma ihin saaxiibe haddaan lacag u soo doonto oon taga xafiiskaaga anigaaba soo dhaanshay oo caada qaataahe haddii aan saxiishoodo oon qaylo kor u sayro oon madaxdu waranaysa rabin dabadda keenkeeno ama waan ka sii darahayaa nama taqaanaane oo horumarkii caalamkiiyo dibudhiskeenniiba iyo wixii dhaqaaliya anfaco nala ku taageeray iyo macal qorshihii sugi lahaa xamar ammaankiisa dawladdaa siyaasaysay baan toos u dhahayaaye ganacsiga khasaaroobay oo jidadka loo diiday oo canshuurta laga qaaday iyo madax wareerkiisa Itoobiya heshiis lala galoon cudubo faahfaahin wax la kala saxiixdana bulshadu haatan war u haynin iyo qadar waxay damacsan tahay amase loo sheegay iyo macal kalluunkii badooshiina laga iibshay iyo hadalla noocaasa baan soo bandhigayaaye bal ogaada maalmahan aqligu way rafanaya warniya wada damaneedu aqliga rafasho isbadati koowde hadageedla kiihiri badan aantisino geebada ka jiifada doonto ka aale doorashadii horena may bahayde doorasho dadban tan hataa dareerton waliba leeray ha lanki beesi lehow koy aryaadaha Soomaaliyeed doorashadan yahay naqatay in dadka la gato damiirkii iyo dareenka wadaniyaduna naga dhinteen run la suma sheego man wax gataya waajib gudahaya Abdullah suuqa doorashada xaaba lagu gaaraya isbaara ka sokoysa 20 iyo 10 kun oo doolar lagu qaadaye araada saaxiibayaal war ma haysiine saan idin sugay xaliseedaha igay iridana ma aan xiritaanka sidoo yahay sababtiina way saakiseed ku sugantiin alla ilaahay gooyobo kugula yaabi maayo hadda ka hor waxaan maqli jiray hiba maxamedo leh sabab kale hamoodine suntaadi habeenadan waan ka seexawaayo seedahaadi goyse war Abdullah waxaad ka tagtay xalay baan saqdi dhexe sariirtan ku jiifsaday sagaal jeer ka tooso oo hadda gooyow ma jacayl intaas laaga ku dhacay war jacaylka gooyow kii cilmi boodhirka oo yare war hadalka gooyow aan ku xasuustay waxaan idin weydiinayaa ma taqaanin bulshada beenta ku heshiisa runtana ku dirirta arya axmedow waxaan maqli jiray haddana aadan ka sokeyn soo naqoado nabada allaha ku soo aruursho anina waliba dheega jiray dhoof nooli kulante hadhantaalin aan shaqa
dhaqso waan u soo noqon warmasugta meer malaa hore loo yidhi madaxdii dhooftay way soo noqonayaane maxaa sugalaadihiinoo idiin sidaan arooda waxaan maqli jiri waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa labadhe soomaalay ha fududaan samir yeela weliga horta kaalanimayo waxaan idin weydiiyey qayriyo farmaajo waxay ku dirireen soo doorashada wakhtigeedii hal la qabta ma ahayn yaa ku yidhi weligaa elitariya wax laga keena ilaahow bakhshiish kama rabee ha igu geli baadinsa ma waadan maqlina war waa waalateene bulshada beenta ku heshiisa runtana ku dirirta ayaan idin weydiiyey iga jawaaba war haanaas anii goradee lama dalaal oo riido isla gadeengu madeeyow ma bulshaa lagu weydiiyey aasaad hanti noogu jawaabay aqliyaradaada adeerta ah ku daalina waa siyaasiyiinta qoladan jaarka nahay war taas aniga aqaane waa bulshada gobollada dhexe ku nool war su'aashaasi ha ku wareerine waxaa laga hadlaya Soomaali maahane waa carab aniga waalida oramada aan ku arkay kuwaas inay yihiin aan u malaynaa aroo meel kale akadoonin sabsabar raxsa xariir waa iikaaw aan maqli jiri alla ilaa bulsho been ku heshiisa runna ku dirirtay inay sab dhaban yihiin aan hubaa oo aysan fayaabayn war waxaan u malaynayaa bulshada beenta ku heshiisa runtana ku dirirta inay yihiin qoysaska Soomaaliyeed sababtoo ah marka koobaad shukaansigooda been uu ku bilowdaa marka dambana runtay ku diriraan saan la yeelayaa waayahay ma shukaansiya been laga ilaali karaa aryaadhaha Soomaalida waxaan kula yaabaa beenta madaxday ku eedeeyaan ayakayna dhaqan u tahay sababtoo ah waxay dhaheen naag beenaa lagu soo xeregalshaa runna waa lagu dhaqaa muga ilmihii beentaas ku dhashay kadibna been kale lagu sii barbaarshay ninka runka sugaayay u taallaa taasi dhib male cabdullow madaxda Soomaaliyeed waxaa laga laayahay xilka been ku raadsada laakiin run ku dhaqa warna miyaw taasiyada madaxda maaganka eedayaasan mayleere awlaadi awsha gurbaan dhawaaw iyona sargooyinka baradaayan war hore waa tii abwaan u yidhi been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa bilcaanta iyo barbaartu dhalana waa ka badiyaan yaa lagaa bari lagaana badii maad ka wadaane horta saaxiibayaal waa garateeno bulshada la sheegay waa Soomaaliya been in la isku sharxay oo goshahay oo ballanqaadiya la sameeyo sacab la isu tumo marka ay runta gaadho iyo waxa la qaban karana waa la diriraya warnamiya usugaan is wareerina lamadii dhulaa iska leeliida ya sariir iska la faylaadayaan warnamiya waxa la yiri laba eerin ku qaybsata bisaan iskuma eedo war waxa kale oo la yiri labadii baadil ku heshiisa xaqay ku diriraan aryaadaha waxa kale oo la yiri runtu ragga waa ka nixisa looga mana roona aryaada waxa kale oo la yiri laba been ku heshiisay runtu waa bukisaa gar laba nin kama wada qoslisan hore loo yiri wala weynay musuqmaasuq iyo been iyo malmaluuq ka dhamaan meeshan miya war musuqmaasuq Soomaali waa meehrideedii miyaad maqal xageed iskaga reebaysaa war musuqmaasuq naftiisa su'aalka teeganta aan naftay ma in gorday gaadi iyo inay gariyo horta deynta Soomaali lagu leeyahay qowdan inuu nugula jiro ma ogyahay war deynta Soomaalida lagu leeyahay laftirkeeda waa musuqa war musuq waaba ka weynto waa ribo war deynta ninkii madaxweyne noqdaa lagu leeyahay yaa yiri Soomaaliya lagu leeyahay war naga tag wasiirka maaliyadda lagu leeyahay miyaadan arkin sida beelo u rafanayo war Cabdullaahi Suldaan macanshuuru la fakay Turkiga muxuu ka doonay arooda horta ani waxaan la yaabay deynta la leeyahay Soomaaliya laga cafinaa musuq miyaa mase waa campaign war haddaan musuq maasuq jirin ama aysan campaign ahayn afartii sano madaxweyne farmaajo joogay maalin kasta deyna la cafinayaa baa la lahaaye waxna noogama yaraadaan balahashadu ma dhamaata miya warnimada deyn cafinta campaignka musuqa hatta ra'iisul wasaare cusbaaya lagu talaalay maalinta xilka la wareegayana waraaqa inta la soo hordhigaa leeyahay saxiix ra'iisul wasaare Mareykanka Soomaaliya deyntii ka cafiyay kadibna Donald Yamamoto hadlay wasiir bayle kadib wuxuu yiri Soomaaliya hadday dawlad wanaag la timaado doorasho fiican qabato musuqmaasuq dambana ay ka dheeraato deynta waa laga cafi doonaa marka waxaan la yaabanahay musuqmaasuqa u dhaxeeya deyntii waa laga cafiyay iyo waa laga cafi doonaa niyow qayladaadaan u jeedaa qaran dumis cad baa taadaana musuqmaasuqa walaalayaalow idinkoon isku daalin musuq yaa maasuq maalmihi la maali jira yey maare musuq yaa maasuq maalmihi la maali jira yey maare haye waa saad u sheegtayo doorashada soo socota waxa loo bixiyay kii lacag loo kooy arooda ani waxaan maqli jiray Soomaaliyey digtoonow doc kastood ku hoyotaba digtoonow
yaan laylin dagine digtoonaada aryaa gooyoobow digtoonow arrintu waa soo dhaaftay oo waxay mare kii lacag lahow kooy horta ninkii xil lacag ku dhiiba muraadkiisu inuu lacag kale ku helo sow maaha hankoolow gaylid intii isku dhaafta kii lacag lahow kooy madeeyo hankool 20 ka qaadi mayside iridda hore ka celi war maal ninkii xil ku dhiibay inuu xoolo macaashiyo mushtar buu ku rabaayo maalgashi madaxeeda la yidhaahay miyaanan maqlinka arooda waxaan soo maqli jiray istaxil joker waxaadaa joker xukuumadda dhammaan sugayna saas leemiya xukuumaddeennu laysa ka midlihaa shay-un waaye aryaadhaha ayaan qayla idin dilina kii lacag lahow kooy waa walla weynay doorashadiinnima waxay maraysaa kii lacag lahow kooy korjira kaalolika kooyna walkalaan kale kii lacag lahow kooy wareer kale maana waayaan waxsan ma aragtiine waxaana laydinku tilmaamay inaad mucaad xiirxiira tihiine magaalada muqdisho ra'iisul wasaare rooble wuxuu amray baa la yidhi in dhagaxdii laga dhex qaado dadkuna meeshii ay doonaan ay maraan ciidankana waxaa laga rabaa la yidhi booskii dhagaxu taagnaay inay buuxiyaan weliba dhagaxu waxuu celi jiray ayagu inay inta iska baaraan sii daayaan war ra'iisul wasaare rooble madiidii hore inoo wal yarka ka bedelayaan aragayana haani hore shiido waa lagaadee guri jireen haliintona ma qobada jirna shiidka layga dari jireen laakiin kan shiidoogeeli siinka gaadee intii usniin ernabi shiid gaado waa bilaaway jidade berkuwa binaay war maanta booliisku xafladay qabeenaa la yidhi waddooyinkuna waa u xirraayeene tolow yay xirxidheen aroo xijaar maa booliska laga bedelayne war xafladda booliska guddoomiyaha maxkamadda sare oo ka hadlay wuxuu yidhi ayaanta beledka waxaa ku soo badatay anshax darro hoteellada nimanka iyo naagaha aan isqabin isla galaanna waa bateen hay-adaha amnigu oo booliska u horreeya waxaa laga rabaa hoteelkii laba aan isqabini galaan inay tillaabo ka qaadaan hoteelladana waxaa laga rabaa labada isla socota sharciga iskula socdaan oo isku qabaan inay weyddiiyaan war waraaqadii bugtahayo cabdilashideeye hadday soo qaataan sow dhibaato maaha aryaadhaha waraaq nikaaxo musuq maasuqa ninka dhiiba macsidii ka dhalata isagaa mas-uulka ah war madaxweynihii jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo ra'iisul wasaarihii hore khayre way kulmeen baa la yidhi maxay ka wada hadleen war qowdhanow telefishinka qaranka miyaad ka daawatay war telefishinka qaranka aad sheegaas kaamirooyin jey beryaawun ra'iisul wasaare khayre ma gobol u hayaan war waayahan tv-ga qaranka ismaaciil cumar geelle waxaa uga badan isiis afwaarke war ma haysiine madaxweyne deni wuxuu tegay imaaraadka ayuhal imaaraat jiifa luus yaaray war qadar iska bareejeeya miyuu yidhi war ma imaaraadka carruurta caanaha loo siin jiray ayuu noo weydaartay war deni wuxuu imaaraadka u tegey shirkadda d b wold oo waa hore ballan qaaday inay ballaarinayso dekedda boosaaso welina aan waxba ka fulin war madaxweynaha galmudug qoorqoor asna baa jabuuti ku laabta weli lama bilaabin dekeddii hobyoode war shirkadaha wax ballan qaadoon fulini waa badan yihiin dekedda muqdisho shirkaddii turkiga oo lagu wareejiyey maxay ka qabatay ilaa hadda war derbi weyn inay ku wareejisay waa la og yahay laakiin taa ka kale ma qaban baa la yidhi lacagtii ayadiiyo madaxdu heshiis ku yihiin in la iska gurto arooda shirkadda turkiga ee garoonka muqdisho maamusha iyadaba hadda ka hor inay ballaarinaysa ay ballan qaaday waxna kama ay qabanin waatan diyaaradihii meelay kala maraan la waayey aryaadhaha kale maanay afdaboolan dahabaa la yidhi cagihiinna maad dhulka dhigtaan war ma turkigii berigii aad liidateen idiin soo gurmaday ayaa maanta wax ka sheegaysaan waa waalantiini war turki abaalaan u haynaaye shirkado cir weyn oo wixii lagu ballamay aan fulinayn ayaan sheegaynaa warwar mahaysiina reer kalemaanow kismaayo raggii bambooyinka tuuri jiraa la qabqabtay kadibna waa la soo bandhigoo waa la waraystay mid ka mida wuxuu yidhi bambooyinka meel hebla anaa ku tuura oo meel hebla anaa ku tuuray intii dhaawacanta allah caafiyo intii dhimatana allah igula xisaabtami doona warniyowkaasi xoog badana xisaabta ilaahay macayaar buu u haystaa say kula tahay maahane ninkaasu si kale u aaminsan yahay warkaas shoodha amiir miyuu ahaa war amiirrada carruurtooda dibadda jiraan dadka hawaalinina araada war ma haysina warkayga dhegaysta balcad iyo basra intii u dhexaysa waa laisku babdhabaa la yidhi ciidanka xoogga dalkaana duulaa la yidhi mar hore waxay u duuli waayeen ciidankeennu fadhiiday ahaayeen waayahan waxaan maqli jiray diyaaraddeennana maduulay hadday duushana afgooya dagaay dagaalka wajaale soomadaydaay marka ciidankeennu masaasay noqdeen waryaa 77 waa laga yimid dadka isku dirin war somalilan qolo dadka kirstaamaynaysa ayaa xabsiga madheero alliinti ku cabbayaan war kuwaasi kuwa markii hore ayaga laftirkoodu diinta ka baxay bay ahaayeen baa la yidhi war maa la garaacoo la tumo waa edab daran yihiin aroo dembiga haddii lagu helo cadaaladda la waafajinahaa la yidhi ee shibnaga dhe war soomaali xaggay ku hartay cadaaladda waryaa dalkaani oonay diintan lankiga hadguduba inoo tilaabo koog ilaa miisa didla ku gaadu kursigaasan caashaqae madaxweyne koli dhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda Jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda Galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda Puntland anna waxaan ahay madaxweynaha Hirshabeelle aniguna waxaan ahay madaxweynaha Khaatuma State waxaan ahay madaxweynaha dowladda Banaadir State war ana waliba aha madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ay haysid kore waan ila gobsida kore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda Everland adeer aabba wax xanuunsan yahay allaha caafiyo dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku idhi allaha u naxariistaan anna ku yidhi maxaa ka wadaa dhakhtar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ee haddana faylka dheer loo gelayay sow maaha nacam adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine 10 dhiig 10 dheecaan kumbuyuutar raajo iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayay sow maaha markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaalisan kuu sii qorayey maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabanahaye dhakhaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajinibta noo yimid iyagaa keenayo waa isku mid ay ku mahmaadaa feeri ganjeelo foorgad muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ka hadleen intaasaan ku soo koobaya yaana sifadina ma dheheen ilaaba aan sharci yahay laga qaadi karo waadana walku gaade walku gaadu way war dagaalka joojiya nabadgelyo allah idin siiye oo diintiina iyo dalkiina ilaashada daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeena